farxad weyn ii ah inaan hor taaganahay gruubyo kala duwan takhasusaad kala duwan khubaro kala duwan oo fildiyada kala duwan oo cilmiga soo bartay la soo barbaariyay waqti badanna la soo geliyay inaan hor taaganahay farxad weyn ii ah waxaan marka koowaad u mahadcelinayaa xafiiska alumnaaga jaamacadda muqdisho iyo si guud jaamacadda maamulkeeda oo sameeyay programkan ama initiative-kan muhiimka u ah ardada xilliga kala guurka ah oo xal ah xilli muhiim ah aad nolosha muhiim u ah sidoo kale ardada waxaan leeyahay maanta waa fursad weyn ay ka faa'iideysa insha Allah mawduuca aan ku qoranahay ama arabina in la wadaago maanta wuxuu ku saabsan yahay adkeysiga xilliga digitalka ah mustaqbalka iyo hadda digitalka mustaqbal uu leeyahay oo aad u tiro badan haddana uu bilaado mustaqbalku saacadaas aad joogtid oo mustaqbalka joogtaa waxaan rabaa marka in aan ka hadalo xirfadaha digital skillska loo yaqaano ahamiyadda ay noo leeyihiin iyo qofka waxa laga rabo inuu xoogga saaro ayaan rabaa inaan la wadaago insha Allah digitalku maanta ma aha wax faa'iido kaliya leh waa faa'iido la raasanayo kaliya ma aha waa necessity waa waajib qof kasta inuu barto waa qof kasta ma noolaa karo ma socon karo nolosha lama qaadi karo haddii uusan skillska digitalka ah iyo luqadda digitalka lagu wada hadlo uusan baranin waxba ma qabsan karaa shaqadii kuma guuleysanayo business kuma guuleysanayo marketing kuma guuleysanayo even waxbarashadii iyo fursadihii caalamka jira lama jaan qaada wuxuu noqon doonaa qof umiya waxaan leenahay marka digital skillsku waa luqad international ah oo caalami ah oo la mid ah luqadaha adduunka looga hadlo wadamada ay leeyihiin sida luqadda ingiriiska luqadda carabiga luqadda yihiin waa luqad lagu hadlo qofkii luqadaas ka qatanin waxaa ka maqan ideas fara badan oo la xiriira disciplinada aan baranayno takhasusaadka aan baranayno maxaa la ahaa ganacsiyada ideaska horumarkii wixii oo dhan ayaa ka maqan maadaama ay luqad tahay marka xilli oo aad teknolojiyadu u horumaraysan aan ku jirno oo teknolojiyadu isbedbeddel xooggan ay samaynayso waxaa laga maarmaan ah in aan adkaysi u yeelano la qabsiga iyo qabitinka iyo gelitaanka caalamkaas digitalka ah oo nagu hareeraysan waxaan rabaa marka 3 skill ama 4 skill oo muhiim ah inaan dul istaago anoo u fiirinaya takhasus kasta oo aad leedihiin dadkii hor fadhiya waxaa ku jira dhaqaatiir injineero waxaa ku jira looyaro waxaa ku jira macallimiin waxaa ku jira murabbiyiin waxaa ku jira dad teknolojiyada bartay waxaa ku jira dad ganacsiga iyo maamulka iyo maareynta iyo innovationka bartay waa takhasusaad kala duwan waaye fields kala duwan marka qaabkan uu hadli doono waa qaab broad ah ma topic mucayan ma ka hadli doono ama meel mucayan ma ka hadli doono waxaan rabaa marka si guud in qaabkaas broadka ah loola falgalo loo dhaqaato insha Allah skillka koowaad u baahan waxa waaye inaan barano digital skills ama digital literacy wax in aad taqaanid sida computerka loo isticmaalo internetka loo isticmaalo internetka wax looga raadiyo xogta u baahan tahay u raadsatid applicationada kala duwan softwarada in la isticmaalo waa inaad baratid waa skillka number 1 aad u baahan tahay waa skill aad muhiim u ah badankeen ardada waa isticmaalaan laakiin sidii la rabay meelaha qaar inuu saxana laga yaabaa inuu gaab badan jira laga yaabaa markaan suuqa kula kulmo man ardada digital skills ama digital literacy gaab fara badan ayaa ka jiro qodobka labaad oo aan rabo in xoogga la saaro waxa wax loo yaqaan data literacy caalamka maanta xoga buuxdo xog waali ah oo dadka harqinayso oo daadka biyaha oo kale ka badan ayaa caalamka buuxdo xogtaas oo daadka biyaha oo kale ah waxay u baahan tahay khubaro sifaysa analyze garaysa falanqeysa markay falanqeeyaana ka soo saara wax nuxur u lah ganacsiga nolosha bini aadamka la jaan qaadista cilmiga aan baranayno fursadii halkaas ku jirta marka data literacy-ga inaan xoogga saarno oo aan si fiican u barano toolasha iyo softwarada iyo skillska iyo analytical skillska oo la barto oo certificationka caalamiga laga helayo very important waa marka inaan data literacy yeelano sidee daatada loo macneeyaa daatadu is not numbers kaliya ma aha waa sheekooyin u baahan in laga sheekeeyo waa sheekooyin u baahan in loo bedelo nolosha oo sheekooyin u baahan in caqabaadka jiro oo nolosheena lagu xalliyo sheekooyinka si looga sheekeeyo waxaa u baahan tahay inaad leedahay tools iyo skills kuu fududeynayo in aad daatadaas macno u samaysid qodobka xiga aan rabo inaan ka sheekeeyo waxa waaye
communication and collaboration صح الله isgaarsiinta iyo wada shaqeynta caalamiga oo fursad weyn tiknoolajiyada ay abuurtay pandemic covid-19 wuxuuna baray ama dadka tusiyay ahmiyadda ay leeyihiin in communication ka tools online ka Zoom maxaa la Slack maxaa la Teams softwareadan kale oo la isticmaalo AI u badan ChatGPT waxaasoo dhan ahmiyadda ay leeyihiin waxbarashada ganacsiga horumarka qofku inuu qof diyaarsan noqdo ahmiyadda ay leeyihiin ayayna bareen marka collaboration ka maantay luqadda lagu wada hadlaayo waa software iyo toolal softwareada programka caadiga la yaqaan ma aha waa wax aad u baahan tahay inaad noloshaada meel kasta ka gelisid aad u isticmaashid haddaad content creator tahay oo buugaag qoraysid filmaan samaynaysid buugaag samaynaysid haddaad wariye tahay waxaa u baahan tahay inaad taqaanid how to use effectively toolashan iyo softwareadan gacantaada ku jiro sida si effectively ugu isticmaali lahayd sidee aad prompts u samaysid aad wax arti kugu fududeyn lahayd because dadka ala tartamayna caalamku koorsooyinkaas ay qaataan certificationkaas ay qaataan isnad wax oo jaamacadda kaliya lagu barto jaamacadda asaasiyaadkii iyo fundamentaliska lagu baraya waa wax u baahan in aad isbartid wax u baahan in aad la falgashid wax u baahan in aad u qasadid oo aad qorshe u samaysatid qorshahaasna aad ku dirsatid maalin kasta aad gool xaqiijisid marka toolasha kala duwan waxaan dhahaa communication toolska iyo collaboration toolsku ma aha software waa bridge isku xiraayo xafiisyada caalamka adoo Soomaaliya joogta waxa ka shaqeynaysaa Mareykanka China caalamka meesha ugu dambayso xafiisyada bridge isku sameeyay waxbarashadii iyo howlashii waxbarashada ayaa bridge lagu sameeyay jaamacadda caalamka geeska ugu dambeeya ku jirto ayaa waxa ka qaadan kartaa howlasheeda iyo laababkeeda koorsada u baahan tahay laakiin waxay u baahan tahay ka warqab waxay u baahan tahay la qabsi softwareada si toolashaas waxay u baahan tahay skillkii lagu isticmaali lahaa haddaadan skillkaas lahayn wax badan ka maqan oo gaab ah marka waxaan rajaynayaa in collaborationka caalamka oo software ku socdo zaidka ah iyo toolashan la isticmaalo inaan la qabsano marka filka caalamka jooga oo documenti ama film ama script uu ku qorayo 5 minutes adina ay kugu qaadanayso inaad maalmo aad iska daba wareegtid isku meel ma joogtaan isku meel ma tartami kartiin waxa ka daba geey kar marka waxa waaye in aad qof kastoo naga mid waxa laga yaabaa ardada aan ahayn IT-ga in isleeyihiin skills laga sheekeenaayo waa skills loogu talagalay ardada IT-ga bis ama dadkaas inay bartaan loogu talagalay laakiin qof kasta oo maanta nool da'da raba jiro xaaladda raba jiro waa qasab oo ku qasban yahay hadduu ku qasbanay hadduu baranina ma noolaa karaayo garaanadka insha Allah insha Allah qodobka saddexaad oo afraad ugu dambeeya waxa waaye digital skillska markaad baratid waxay ka saacidayaan inaad waxbarasho free qaali ah shahaadada adduunka ugu qaalisan ah jaamacadaha ugu waaweyn inaad heshid Google IBM maxaa la Harvard University waaweyn dhammaantood waxay bixiyaan certifications ka qaalisan bachelor iyo master PhD oo free ah hal lacag laga qaadin just maxay u baahan yihiin in aad skill kugu filan leedahay waxa ugu dambeyntii ku soo gabagaynaa marka skills digitalka xagee laga bartaa waxa laga bartaa online-ka koorsooyin gado online-ka tag macaahida tag adiga isbar isticmaal tools si loo barto baro tools si aad u baratid wax kale sababtoo ayaga wax ku baraa ayaga tools ku baraa aad u maasantihiin waqti qaali in la qaato jecelahay aad aan ugu faraxsanahay wajiyada quruxda badan oo ifaahay inaan soo istaago waxaan rajaynayaa just hadalkii wuxuu ahaa inspiration iyo information si guud aad ogtihiin oo aan rabay inaan ku sii xoojiyo aad iyo aad u maasantihiin mowduuc topic khaas ah moosahan maadaama takhasusaad kala duwan yihiin guuleysta waxbarashadana heer fiican ka gaara una diyaar garooba mustaqbalka shaqo iyo waxbarashada. Assalaamu calaykum.